بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ninkan idila hadlaya waxa weeye Farxaan Maxamed Ismaaciil loo yaqaano Injineer Gacan iyo anugu waxaan ku xiranahay xabsiga loo yaqaano oo faahfaahin ku xiranay dulmi badan baa ugu dhacay anigoo Hargeysa ka imid baa aniga meesha la yiraahdo badan baa lagu weeraray dhibaato badan baa dhacday يعني sababta la weerariyay dhibta dhacayna wali aan ka garan maayo waxa jira laba nin oo aan wax wada lahayn oo ku wada lahayn meesha loo yaqaano milxo kooda shaqaysan jirnay oo kii deegaanka igeeyo ku kala running cost-ga bixin jiray oo shuraaka ilaaha baa muugti meeshii ku heshiiyay qoraal kala qortay meeshii bas ka qaatay anigoo nool bay heshiis dambe wada galeen garna mihii boosaasaa la keenay boosaaso hantidii ma taalo markhaatiyo ma joogaan cid alaala cid joogta ma jirto nin xidhan oo qolkana calle oo duqaani cunasku inta laga soo saaro la yaraana la xisaabta oo garsoorihii iyo labadii nin ee saysanay iyagoo wada socday yimaadaan nimanka ajnabiga iyo dadkii oo dhan propaganda laga dhaadhiciyay leeyahay waa ninkii dahab u qaatay hantidii la soo saarayayna iyaga gacanta ku haya qalabkii iyo shaqaalihiina iyaga xoog ku haysta in anugu diyaar waxaan ahay inaan garbaxo geed hoostii haddii Soomaalinimo jirto geed hoostii in aan fariisano ku garbaxo maxkamad anigu gudoomiye maxkamadda gobolka bari kama cabanayo ma joogin laakiin ninka ku xigeenkiisa ah wax allaala wuxuu xukumo iyo wax allaala wuxuu kala qoray fiktan baan ka ahay waxa weeye yani hatta aqliga bini aadanka diiday sidoo ninkaas wuxuu qalay nafsiyan buu dilay aqliyan buu dilay ruuxdaydii buu dilay Soomaalinimo ninkaas adeer markaa nimankii Suudaanta aniga mar aan la hadlay bay igu yiraan Farxaanow anta tashajaru mantiqa ma mantiqatak wa qabilatak ma usakina ma hadalkaas markaa runa aan dadka deegaanadan deegaanba dadka majeerteen u yaqaan dad wana dawladda Puntland waxa ka codsanaya in ay kiiskayga ay ka xaq soorto oo aan cadaalad helo aniga ninba waxay qaban lahayn in Ilaahay uu naxariisto waa dhintay oo Suldaan Maxamed Cabdilqaadir oo wuxuu ugu yiri wasiirka cadaaladdan la hadlaya awil ma lagu sheegay magaciisa uu sheegan malaynaya maalintii yiri waan la hadlayaana Ilaahay uu naxariisto oo geeriyooday isla habeenkiiba iyo waxaan u baahanahay aniga in wasiirka cadaaladda aan ka codsanaya haddii xuquuqul insaan jirto commission xuquuqul insaan in arrinteeda la waraysto oo la galo oo macnaheedu waxa weeyaan naloo gar qaado cidtan isagano waxaan aniga sida magafaha iyo sida maxay hayday adoonsi wallaahi wax badan oo aan qarinaya jiro ugu dhacay wax i qabsaday oo aan qarinayo ayaa jira oo aan tamaniyay mararka qaarkood Ilaahay haddaan ka cabsanayn in aan suusaar sameeyo Ilaahay haddaan ka cabsanayn oo aan sahayn nar haw bareerin mararka qaarkood aan tamaniyo war magaalada tan amba gobolka kan hadduu maanta ku ooli la meesha diin ahaan dadka aad u kala fognayay dhaqan ahaan waa yuhuudda talaabiyeed ku la malaaniyo in yaroo kamid ah cadaalad wadin noloshadu way helin in yaroo kamid ah noloshada cadaalad way helin oo lagu dhageysan la aniga niyo mu'amarad bali usmii inba burjuwaasi isaga ka dhigay diyaar baan u ahay amaam al-kamera ina ku gartamo diyaar baan u ahay in deegaankii aan tago diyaar baan u ahay in baninka aniga igeeyay baran ee milxa igeeyay ee iga mas'uulaha ee nolosheedii nafteedii shaqaalahayga iyo qalabka iyo waxa sidoo dhanka mas'uulaha ee haddana diidan inuu milxa igula gartamo iyo baran bal muxuu rabaa Soomaaliya isweydii
aniga technical leegu soo xawilay maxay ciidanka iyo dawladda Puntland oo la adeegsado wax loo sheegay warmahay marba aniga dhagahay wax badan bay u soo gaadhay ninkii taliyaha soo weeraray waan wareystay Abdullaahi Umar Cashuur waan wareystay oo si fiican baan wareystay مسجدي ليس ودريها شباب يو ما تقص ليسنا ينعيبك يصير نعيبك وان تصي إن عمر عشور حدنا يدرس هاي جوا كبري مركز دولة بوتلان حق عصنية إن يارهن تاس نكاس يهيستا شهدون على يرى لا يراضو نكا إني سعدالة حقا وقرقاض reerhaanna arintii uu galo anigu waxaan ahay nin aan maxay ahaydeen aabba lahayn adeer ma lihi ilma adeer ma lihi walaalo saddex nin oo dhimir ah oo xanuunsanaya baanu walaalanahay marka intii wax ii tari leedna inta badan waa inta idin sheegay intaba ma lihi niyo Soomaalinimo ninkaasi wuxuu u dhaartay in uu kibir awge uu yiri hal mid unba xabsiga ka saari karta kaliya waxa weeye inaad dhimasho waa laga saari karaa dumida laakiin bal cid laga saaro shaqaalihii xoog baa lagu haystaa qalabkii xoog baa lagu haystaa nimanka goobta galay ee u haya ninkan anoona wareejiyena waa ninka aadan Saciid bal sifada sharci aniga noota ayuu baan haystaa sifada sharci uu ku wareejiyay wali aan ka garanayo ay ku wareejiyeen odayaal ma ahayn laakiin nin buu aniga ila galay iyo ninka oo ka damiina sifadii ku wareejiyeen iyaga laga rabaa iyaga weydiin hal weydiin oo maxay hayday arinta ni ummadda islaamka waxaan leeyahay anigu haddaan khaldamay oo dhul harteedaan soo galay buurihii waa kuwaas qaatay warsangeli sharci u sameeya amba sharci ha samaysto amba yuu samaysan ha qaato wax badan oo aan sheegin oo aan dib kala kulmaya jiray marka halkan aan ka sheego wax badan oo sharciyeed oo ninkaasi sameeyay iyo ninka kalaba bay ugu adagtahay halkan naga sheego waydo wali nolosheeda waan jeclaan nolosheeda waan jeclaa yaan dhibaato la kulmo inta ka badan ma rabo marka waxa taas halkeeda lagu tagay laakiin waxaan anigu diyaar u ahay nin wax lagu leeyahay garbaan u baahanay garbax maalintan Erewaadi ka tagay waxaan waa qaata oo aan ayaa leeyahay riwaayah sidii buurtan ay gashay buuraha naga gashayna adigu bixi diyaar baan oo ay baan ku inaan maxay ahayd hatta taa bixiyo laakiin aanu shaqeysto shaqadii baan bilaabanay shaqo kala bilaabanay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم نكن إذا هذا يا وحوي فرحان محمد إسماعيل الله يدعنا وجمهر قاعد يو أنا وحن كفرانا هاي حفظ الله يقانو وصاصان كفراني ظلم بدن با ugu dhacay anigu halkiisa ka imid ba aniga meesha la yiraahdo badan ba la igu weeraray dhibaato badan ba dhacday yaani sababta la weeraray dhibta dhacaysayna wali aan ka garan maayo waxa jira laba nin oo aan wax wada lahayn oo ku wada lahayn meesha loo yaqaano milxo kooda shaqaysan jirnay oo kii deegaanka igeeyo ku kala running cost-ga bixin jiray oo shuraaka ilaaha ba muugti meeshii ku heshiiyay qoraal kala qortay meeshii la iska qaatay anigoo nool beeshiis dambe wada galeen garna mihii boosaas la keenay boosaas hantidii ma taalo marxaati ma joogaan cid alaala cid joogta ma jirto nin xiran oo qolkan ay cal oo tuqaani cunusku inta laga soo saaray la yaraana la xisaabta oo garsoorihii iyo labadii nin ee saysanay iyagoo wada socday yimaadaan nimanka ajnabiga iyo
dadkii oo dhan propaganda laga dhaadhiciyay la yidhi waa ninkii dahab u qaatay hantidii la soo saarayeyna iyaga gacanta ku haya qalabkii iyo shaqaalihiina iyaga xoog ku haysta in anugu diyaar waxaan ahay inaan garbaxo geed hoostii haddii soomaalinimo jirto geed hoostii in aan fariisano ku garbaxo maxkamad anu gudoomiye maxkamadda gobolka bari kama cabanayo ma joogin laakiin ninka ku-xigeenkiisa ah wax allaala wuxuu xukumo iyo wax allaala wuxuu kala qoray fiktan baan ka ahay waxa weeye yani xataa caqliga bini aadankaa diidaya siduu ninkaas wuxuu kala nafsiyan buu ii dilay caqliyan buu ii dilay ruuxdaydii buu dilay soomaalinimo ninkaasi de adeer markaa nimankii suudaanta ama aniga mar aan la hadlay bay igu yiraan farxaanow anta tatashaajaru mantiqa maa mantiqatak wa qabiilataka maa usaakina warma hadalkaasaa markaa runa anu dadka deegaanadan dega amba dadka majeerteenka u yaqaano dad wanaag dowladda puntland waxaa ka codsanayaa in ay kiiskayga ay ka xaq soorto oo aan cadaalad helo aniga ninba waxay qaban lahaa ninkiina ilaahay u naxariisto waa dhintay oo suldaan maxamed cabdilqaadir oo wuxuu igu yidhi wasiirka cadaaladdan la hadlayaa cawil maa laygu sheegay magaciisa wuu igu sheegan malaynaya maalintii yidhi waan la hadlayaana ilaahay u naxariisto waa geeriyooday isla habeenkiiba iyo waxaan u baahanahay aniga in wasiirka cadaaladda aan ka codsanaya haddii xuquuqul insaan jirto commission xuquuqul insaan in arrinteeda la waraysto oo la galo oo macnaheedu waxa weeyaan naloo gar qaado cidtan isno hon aniga sida magafaha iyo sida maxay hayday addoonsi wallaahi wax badan oo aan qarinayaa jiro igu dhacay wax i qabsaday oo aan qarinayo ayaa jira oo aan tamaniyey mararka qaarkood ilaahay haddaanan ka cabsanayn in aan suicide sameeyo ilaahay haddaanan ka cabsanayn oonan islahayn naar ha u badheedhin mararka qaarkood aan tamaniyo war magaalada tan amba gobolka kan hadduu maanta ku ooli laa meesha diin ahaan dadka aada u kala fognayay dhaqan ahaan waa yuhuudda talaabiib hadduu ku ooli malaaniyow in yaroo ka mida cadaalad waad heli noloshaad way heli in yaroo ka mida noloshaad cadaalad way heli waa lagu dhegeysan la anigan iyo mu'aamarad baa laygu sameeyey ninbaa burjuwaasi isaga ka dhigay diyaar baanu ahay amaama almala amaama alkamara inaan ku gartamo diyaar baanu ahay inaan deegaankii aan tago diyaar baanu ahay in ninka aniga igeeyey baran ee milxa igeeyey ee iga mas-uulahaa ee nolosheedii nafteedii iyo shaqaalahayga iyo qalabka iyo waxaan sidoo dhanka mas-uulahaa ee haddana diidaan inuu milxa igula gartamo iyo baran bal muxuu rabaa soomaaliya isweydiiye aniga tiknikada laygu soo xawilay maxaa yahay ciidanka iyo dowladda puntland oo lay adeegsado wax loo sheegay warmahayo marba aniga dhagahayga wax badan baa igu soo gaadhay ninkii taliyahay soo weeraray waan wareystay cabdillaahi cumar cashuur waan wareystay oo si fiican baan u wareystay mesajyadii lay soo diray hanjabaadda iyo xumaanta ku salaysnaa iyo nacaybka iyo isir nacaybka waan tusay in cumar cashuur haddana iyadoo saa tahay gobolka bari marka dowladda puntland waxaa ka codsanayaa inay arrintaas ninkaas haysta shaahdoon caliyare la yaraado ninka inay si cadaalado xaqan ugu garqaado reer ahaanna arrintii u galo anigu waxaan ahay nin aan maxaa ahayde aabba lahayn adeer ma lihi ilma adeer ma lihi walaalo 3 nin oo dhimir ah oo xanuunsanaya baanu walaalanahay marka intii wax ii tari leedna inta badan waa inta inay sheegeen intaba ma lihi niyo Soomaalinimo ninkaasi wuxuu igu dhaartay in uu kibir awge uu yiri hal mid unba xabsiga ka saari karta kaliya waxa weeye inaad dhimato dhimasho waa laga saari karaa dumida laakiin bal cid laga saaro
shaqaalihii xoog baa lagu haystaa qalabkii xoog baa lagu haystaa nimanka goobta galay ee u haya ninkan anoona wareejiyena waa ninka aadan Saciid bal sifada sharci aniga noota ayuu baan haystaa sifada sharci uu ku wareejiyay wali anaan ka garanayo ay ku wareejiyeen odayaal ma ahayn laakiin nin buu ahaa aniga ila galay iyo ninka oo ka damiina sifadii ku wareejiyeen iyaga laga rabaa iyagan weydiin hala weydiin oo maxay hayday arrintaa ni ummadda islaamka waxaan leeyahay anigu haddaan khaldamay oo dhul harteedaan soo galay buurihii waa kuwaasay qaatay warsangeli sharci u sameeya amba sharci ha samaysto amba yuu samaysan ha qaato wax badan oo aanay sheegayn oo aan dhib kala kulmaya jiray marka halkan haddaan ka sheego wax badan oo sharciyeed oo ninkaasi sameeyey iyo ninkaa kaleba bay ugu adagtahay halkan naga sheego waayo weli nolosheeda waan jecelahay anu nolosheeda waan jecelahay inaan dhibaato la kulmo intaa ka badan dee ma rabo marka waxa taas halkeedaa lagu tegay laakiin waxaan anigu diyaar u ahay nin wax lagu leeyay meeyihi garb baan u baahanay garbax maalintan erin waadii ka tegaya waxaana waa qaata oo aanu ayaa laygu yiri waaya hantidii buurta naga gashay buuraha naga gashayna adigu bixi diyaar baan oo ay baan ku inaan maxay haday xataa taa bixiyo laakiin aanu shaqaysto shaqadii baan bilaabanay shaqo kala bilaabanay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ninkan idila hadlaya waxa weeye Farxaan Maxamed Ismaaciil loo yaqaan injineer gacan iyo anugu waxaan ku xiranahay xabsiga loo yaqaano oo faahfaahin ku xiranay dulmi badan baa igu dhacay anigoo Hargeysa ka imid baa aniga meesha la yiraahdo badan baa laygu weeraray dhibaato badan baa dhacday يعني sababta lay weerariyay dhibta dhacaysayna wali anaan ka garan maayo waxa jira laba nin oo aan wax wada lahayn oo ku wada lahayn meesha loo yaqaano milxo kooda shaqaysan jirnay oo kii deegaanka iyo ku kala running cost-ga bixin jiray oo shuraaka ilaaha baa moogti meeshii ku heshiiyay qoraal kala qortay meeshii baa iska qaatay anigoo nool bay heshiis dambe wada galeen garna mihii boosaasaa lay keenay boosaaso hantidii ma taalo markhaatiya ma joogaan cid alaale cid joogta ma jirto nin xidhan oo qolkana calle oo dukhaani cunasku inta laga soo saaro la yaraana la xisaabta oo garsoorihii iyo labadii nin ee saysanay iyagoo wada socday yimaadaan nimankii ajnabiga iyo dadkii oo dhan propaganda laga dhaadhiciyay la yiri waa ninkii dahab u qaatay hantidii la soo saarayayna iyaga gacanta ku haya qalabkii iyo shaqaalihiina iyaga xoog ku haysta in anigu diyaar waxaan ahay inaan garbaxo geed hoostii haddii Soomaalinimo jirto geed hoostii in aan fariisano ku garbaxo maxkamad anigu gudoomiye maxkamadda gobolka bari kama cabanayo ma joogin laakiin ninka ku xigeenkiisa ah wax allaala wuxuu xukumo iyo wax allaala wuxuu kala qoray fiktan baan ka ahay waxa weeye yani xataa caqliga bini aadanka diidayay sidoo ninkaas wuxuu kala nafsiyan buu dilay caqliyan buu dilay ruuxdaydii buu dilay Soomaalinimo ninkaas adeer markaa nimankii Suudaanta aniga mar aan la hadlay bay igu yiraan Farxaanow anta tashajaru mantiqa ma mantiqatak wa qabilatika ma usakina وما هذا الكاس مركا رونا أنا ضدك ديجان ديجا أمبا ضدك مجرتين ويقانو ضدونا دولة بتلون حق عصانية إن أي كيس كيجا أي كحق صورته وأن عدالة هلو أنا نبى وحقيقة والله أنا كني له نحرس وادنتي وسلطان محمد عبد القادر وحقول وسير كعدالة الله الله يا
عول ما لا يوشيء ما يسوي ويوشيء عن ملاينيا ما ننتيري وان لها الله أنا إلى يوم حريصته وغيري وديس لهبين كيبه يوحنا باهنا هاي أنا إن وسيرك عدالة ده أقعدنا يا دي حقوق الإنسان جرت كوميشن حقوق الإنسان إن أرنت هذا لو رئيسته أو لقلو أو معناته وحوي أن نلوجر قاضي عتنا سأسمه هنا أنا يسد مقفها يسد محيه ذي أطونسي والله وحبذن أو أنقرين يجيو يوضعي وحقب صدي أو أنقرين يوم أيجيله أو أنت مني مرة قاركود إلهي هدانا كعب سنين إن أنصصر سمير إلهي هدانا كعب سنين وأنا صحيح النار هو بريد مرة قاركود أنت منيو والمجالات تن أبغى قبل كان هدو ما أنت تقول لا مش دين هندت في بلاد وكلفني لقناها ويهود تلبيه تقول لما أنا يوم يروكم إذا عدالة وذيل نلاشة وذيل يروكم إذا نلاشة عدالة وذيل هو لو لقي سنة أنا جاني يوم مؤامرات بالي مسمي هم ببرجواس سيكلي ديار بانو هاي أمام الملأ أمام الكاميرا إنا كبرتمو ديار بانو هاي إن ديجانكي أنتغو ديار بانو هاي إن بنينكا أنيجا إجيء بران ملحق إيجي مسؤولها إن رشيد نفطي دي شقالة إيجو قلبك واحد سجود لك مسؤولها هذانا ديدان إنه ملحق يقول كرتم يبرن بالمحور بقى صومالي سويدي أنا قلت لك كذا اللي يوسف حولي محاري عيدا كي دولة بوتلان ولي أديك سدو وحلا شيء ورماهي مربع أنا لقاها وحبضن بيوسف قاري نيكي تليها يسوي الري وان ورست يعني عبد الله عمر عاشور وان ورست أوصفي عمر ورست مسجدي ليس ودريها الشباب يو حمانتك وصلتنا ين عيبك يصير عيبك وان تصي إن عمر عاشور حدنا يدرسات هاي جوا كبري مركز دولة بوتلان حق عصرية إن يارهن تاس نكاس يهيستا شاهدون على يرى اللي يرادو يعني نكا إني سعدالة حقا وقرقاط غير هانا أريتوغو أنو وحانا هاي نين aan maxay ahaydeen aabba lahayn adeer ma lihi ilma adeer ma lihi walaalo saddex nin oo dhimir ah oo xanuunsanaya baanu walaalanahay marka intii wax ii tari leedna inta badan waa inta ay sheegeen inta ma lihi niyo Soomaalinimo ninkaasi wuxuu igu dhaartay in uu kibir awgeed uu yiri hal mid unba xabsiga ka saari karta كلية وحوي أنا دمته لما شو على جسار كرا دميدا لكن بل على جسار شقاله حق بل وهيستا خلب كحق بل وهيستا نمك جوبت جلاي وهاي نكان أنا وريجينا وانك سعيد بل صفة الشرعي أنا نوطا أيوة هيستا صفة الشرعي وكوريجي والهنا كجرما يكوريجين odayaal ma ahayn laakiin nin buu ahaa aniga ila galay iyo ninka oo ka dameena sifadii ku wareejeen iyaga laga rabaa iyaga weydiin hal weydiin oo maxay hayday arinta in ummadda islaamka waxaan leeyahay anigu haddaan khaldamay oo dhul harteedan soo galay takhbuurihii waa kuwaas qaatay warsan gali sharci u sameeyay amba sharci ha sameesto amba yuu sameeysan ha qaato wax badan oo aan sheegin oo aan dib kala kulmay jiray marka halkan adan ka sheego wax badan oo sharciyeed oo ninkaasi sameeyay iyo ninka kalaba bay ugu adagtay halkan naga sheego waydo wali nolosheeda oo jeclaan oo nolosheeda oo jeclaan yaan dhibaato la kulmo inta ka badan marrabo marka waxa taas halkeeda lagu tagay laakiin waxaan anigu diyaar u ahay nin wax lagu leeyahay meehi garbaan u baahanay garbax
ما أنت إيرواني كتير وحنا وقعتها وأنا أيا اللي يروي هنتدي بورتا نجش بورها نجش هنا أبو بحي تيار بانا وأيبان كور إن هذا حتى تابحيه لكن أنا شقدي بان بلاونا شقي كلام بلاونا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نكن إلى هذا يا وحوي فرحان محمد إسماعيل الله يضان إنجنير قاعد يو أنا وحن كفرانا هاي حفظ الله يقانو وصاصان كفرانا ظلم بدن با ku dhacay anigu halkiisa ka imid ba aniga meesha la yiraahdo badan ba la igu weeraray dhibaato badan ba dhacday يعني sababta la weeraray dhibta dhacaysayna wali aan ka garan maayo waxa jira laba nin oo aan wax wada lahayn oo ku wada lahayn meesha loo yaqaano milxo kooda shaqaysan jirnay oo kii deegaanka igeeyo ku kala running cost-ga bixin jiray oo shuraaka ilaaha ba moogti meeshii ku heshiiyay qoraal kala qortay meeshii bas ka qaatay anigoo nool beeshiis dambe wada galeen garna mihi boosaas la keenay boosaas hantidii ma taalo marxaati ma joogaan cid alaala cid joogta ma jirto nin xiran oo qolkan ay cal oo duqaani cunasku inta laga soo